waxaa ka soconaya deegaanada u dhaxeeya caasimada dowlad goboleed Hirshabelle iyo Gamboole howlgal ay iska kaashanayaan militariga Soomaaliya gaar ahaan qaybta 27aad iyo dadka deegaanka kadib markii ay isku dayeen kooxaha argagixisadu in ay weerar ku soo qaadaan dhalinyar ka gadooday gumaysiga kooxaha argagixisada dhalinyaradaasi oo fariisin ka dhigatay halka lagu magacaabo Armooley oo qiyaastii 10 kiiloomitir ka xiga dhanka galbeed magaalada Jowhar militariga Soomaaliya oo dhalinyaradaasi gurmaday ayaa waxa hogaaminayay abaandulaha ciidamada militariga Soomaaliya gaar ahaan qaybta 27aad Saalax Yaaqoob wuxuuna warbaahinta uga warbixiyay qasaaraha kooxda argagixisada la gaarsiiyay halkan maanta aan taaganahay waa meesha la yiraahdo Armooley waa howlgalka ka wadno halkaas oo xalay muxuu ahay xoogaa dagaal ku dhaxmaray nimankii nabadiidka ahaa iyo eegan macaawisley oo taakulaysa qaybta 27aad halkaas waxaa loogu dilay nimanka nabadiidka ilaa iyo muxuu ahay 11 nin dhaawac ilaa iyo 15 gaarayana muxuu ahay waa jira oo waa qaateen halkaasi ciidankaasi wuxuu ka keenay guul lama filaan ah xaqiiqdina waana muxuu ahaa ciidan u diyaarsan inay waajib kasta oo la faray fuliyaan dagaalkaasna xali si wanaagsan ugu guuleystay kadibna gurmadaan u sameynay qaybta 27aad waa la howlgalnay hadda waxaan ka nimid meesha la yiraahdo Jiriirow ilaa iyo deegaanada hoos yimaada nimanka nabadiidka raad iyo jaamel dhigan lama haayo ilaa iyo hadda raadkoodii aan ku taaganahay dadka soo galaan waa looga dabagalaa hadii aan la wadno waajibaadkaasna sidaas ay u soo soconaa waa wixii naloo idmaday sidaa darteed waxaan ku dhiirigelinayaa dhammaan deegaanada Hirshabelle meel kastoo ay yihiin hadday tahay dhinaca Hiiraan iyo hadday ay tahay Shabeellada Dhexe waa in la howlgeliyaa loona diyaariyaa inay falgalaan dhammaan macaawisleyda ha howlgaleen ha kaceen annagana waa garab taagana haddii aan la idmo waana guulaysanaysan bismillaahi kariim sidaas daraadeed hal loo diyaar garoobo howlgal ballaaran oo cadowga lagu safeynay dhaqaaqan maanta aan dhaqaaqnay dib loo laaban maayo ilaa cadowga dadku ugu dambeeyaan ka saarna aad iyo aad mahadsantiin Abubakar Maxamed Bacadle warbaahinta qaranka deegaanka Armooley degmada Jowhar